mar kale iyo kulanti kale wanaagsan oo suuban saaxiibayaal soo dhawaada. Casharkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa cunooyinka la cuno ama cunooyinka kuwooda ugu badan oo la isticmaalo ama sida qaalibka cunooyinka la cuno kuwooda ugu muhiimsan baan saaxiibayaal casharkeena maanta ku qaadanaynaa. Cunooyinka kadibna gadaal waxaan ka raacinaynaa sidoo kale cabitaanada kuwooda la isticmaalo, kuwooda lagu isticmaalka badan yahay ama kuwooda badan dadku isticmaalaan ama laga maarmin oo bulshada laga maarmaan ku ah. Marka aan wada soconno saaxiibayaal. Greek saaxiibayaal cunada waxay u yaqaanaan fayto food cunno, Kyrios meat hilib. Luqada Greek marka la joogo saaxiibayaal Kyrios waxa loo isticmaalaa waa si guud waxay u taagantahay hilib u taagantahay marka hilibka ma kala socona ayuu nooc hilib kasto ahaan kara marka saa u fahmaa. Kotobulo chicken hilib digaag ama hilibka digaaga. Basari fish kalluunkana asna wuxuu u yaqaanaan basari. Haddaad rabtid inaad hilib kalluun dalbatid basari baa leedahay marka saa u fahmaa saaxiibayaal. Fodino beef hilibka lo'da. Fodino wuxuu u yaqaanaan hilibka lo'da. Marka laga hadlayo hilibka ama hilibka sidiisa guud marka laga hadlayna casharka horaantiisa oo ku soo aragnay waa Kyrios. Saas u kala fahma saaxiibayaal. Khrino book hilibka doofaarka ama hilib doofaar. Hilib doofaarkan casharkeena waxaan ugu soo daray inaad luqad ahaan aad ku fahantaan hilibka doofaarka waxa lagu yiraahdo. Marka waa iska garanaysaan dadkan aad buu isticmaalaa dad gaala laakiin anagu muslim baan nahay Ilaahayna naga xaaraantimiyay. Ayada quraanka waa taayid xurrimat calaykum maytatu wad-damu wa lahmul khinziir wa ma uhilla li ghayri Allah bi. Macna waxaan ka soo wataa wa lahmul khinziir oo hilib doofaarkaas ku jira waxyaabaha Rabbi inaga mamnuucay ama Rabbi naga xaaraantimiyay isticmaalkoodii manaafacaadkood. Marka even wax laga yaabaa makhaayad tagtaan oo kale dhahan eekhuma khrino waxaan haynaa hilib doofaar ma garata ama hilibka doofaarka. Marka macnaha inaad fahantaan oo macnaha si aad ugu kadsoomin ama at least aad aqoonteed u yeelataan mar saaxiibayaal saas ugu soo daray. Afga eggs ukun bisomi bread roti rice breeze macaroni spaghetti pasta dhaadheer ama pastada nooca dhaadheer wuxuu yaqaanaan Greek macaroni beans English iyo Greek labadaba waa isku dhihid isku si ugu dhawaaqayaan waa beans marka waa pasta macaroni. Hadda waxaan soo aragnay pasta nooca dhaadheer tanna waa tan yararka oo gaagaaban marka kulay dadku macnaha siyaabo kala duwan inay u kala dhahaan baa suurtagal ama dhihid lagu kala gidsan yahay laakiin annagu waxaan naqaanaa pasta macaroni nooca yararka oo pasta dhaadheer tan ah nooca yararka oo afjaran. Suba siib maraq dheecaanka cuntada way dheecaanka cunada kale ama suugada wax yiraahdaan waa maraq bay ka dhigan tahay oo kala afsam ahaan suugana waa la yiraahdaa maraqna waa la yiraahdaa marka wuxuu noqonayaa Greek suba. Alevri flour bur ama daqiiq burka caadiga ciiriin lagana dubo canjeelada la xooxda malawaxa kamista rootiga waxaas dhan burka caadiga ciiriin laga dubo Greek waxay u yaqaanaan alevri. Sakhari sugar sonkor alati salt cusbo biberi pepper bisbaas ladi oil saliid meli honey malab sokolata chocolate shukulaato. Saaxiibayaal casharka ku saabsanaa cunooyinka intooda ugu muhiimsaneed waan soo qaadanay haddana waxaan ku darnaa cabitaanada intooda ayaguna muhiimka ah. Greek boto wuxuu yaqaanaan cabitaan Englishna waxay noqonaysaa drink. Nero water biyo. Cafes cafe waa kafeega caadiga aad garanayseen Greek wuxuu yiraahdaan cafes. Gala milk caano chai tea shaah luqada Greek shaaha waxay u yaqaanaan chai. Sidoo kale waa soo aragteen baan qiyaasayaa Turkidana ayaguna shaah wax yiraahdaan chai marka halka ka wada sameeyeen. Khimos juice casiirka Greek wax yiraahdaan khimos. Cabitaanada moorgareysan oo dhan oo dhamaantood waxa weeye ama dhalaha ku jirta ama caagada ku jirto Greek wuxuu yaqaanaan khimos. English ahaan waxay ku noqonaysaa juice Soomaali ahaan marka loo fasirana casiir. casharkeena maanta saaxiibayaal intaas ku eegay waan Xaaji Yuusuf waxaan leeyahay mar guusha ka raja dhiganina waxaan kaga tagay salaam calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.